walaalayaal saddex qof oo marqaati ayaa qadka noogu jiro oo arintaasi xaqiijin doono inay gabadhaasi geeriyoonin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawadayaal kusoo dhawaada Qaysiyo Raxma channel. walaalaheena dhammaan inta nagu cusub iyo inta kaleba waan idin salaamayaa, waan idin soo dhaweynayaa. walaalayaal halkan waxaan rabaa fariin muhiim ah inaan ka gudbiyo. fariintaasoo ku saabsan gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Sahra oo ku nool dalka Norway oo ayadoo xanuunsan maalmo ka hor aan muuqaalkeeda idiin soo gudbinay annagoo markaasi u duceynayno. asxaabteennana aad iyo aad bay ugu duceeyeen, aad iyo aad baad mahadsantiin ayaa leenahay. muddo 24 saac markay kasoo wareegatay subaxdii waxaan ka warhelay social media meel walba ayaa laga sheegay inay dhimatay. anigana waxa ila soo xiriiray dad aan ku kalsoonahay ayaa ii soo sheegay inay gabadhaasi geeriyootay. damcan dadkaasina waxaa qalday arrimaha ka socdo social media ama qofku uu khaldami karaa. arrintaasi ayaa sababtay in anigana idinla wadaago oo aan idinku iraahdo gabadhii way geeriyootay, Allah ha u naxariisto. muuqaalkaasi waxaan rabaa si buuxda inaan raaligelin ka bixiyo, waayo ma ihi qof ku faraxsan qof walaashiisa oo dhimatay. ayadoo xanuunsan ayaan aad iyo aad ka xumaaday, aan ka ilmeeyey. ma dhici karto inaan ku farxo geerideeda. waxaa qadka telefoonka noogu jiro si toos ah Maxamed Xasan Maxamed oo ku magac dheer Norway Camaad, iyo Cali Maxamed, Cabdalla Shariif, iyo waliba walaasheen Sahra saygeeda. walaalaheena qadka ayay noogu jiraan. intaan aan u gudbin walaalaha qadka ku jiro, waxaan rabaa inaan si toos ah walaashay Sahra la hadlo. walaashay Sahra waxaan leeyahay raaligelin buuxda ayaan ka bixinayaa arrintaasi anigoo ku hadlayo magacayga, magaca channelka Qaysiyo Raxma, iyo waliba magaca asxaabta nala soo wadaagtay arrintaasi. ma khaldami waa alle. qofka nala soo wadaagay wuxuu ahaa qofka aan ku kalsoonahay, asagana damcan waa la soo khalday, dad kale ayaa la soo wadaagay. muuqaalkaasi markii aan arkay maalin ka hor ayaan arkay, baraha bulshada ku arkay. baraha bulshada arrintani waxa ku cusub ma ahan. madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa geeriyooday ayaa lagu leeyahay. waxa nagu cusub ma ahan, dhiga uma dhigin. waxaan is iri arrimahan waa arrimo been abuur ah. maalin kadib 24 saacadood markay ka soo wareegtay, dadka aan saan hore idiin sheegay ku kalsoonahay la soo wadaageen ayay igu yiraahdeen gabadhaasi aad nala soo wadaagtay ama aad la wadaagtay asxaabtaada way geeriyootay. dad kor u dhaafayo 6 qof ayaa ila soo hadlay ama ila xiriiray oo ii sheegay arrintaasi. markaasi ayaan anigana run u qaatay. kadib waxaan soo dhigay channelka Qaysiyo Raxma anigoo oranayo gabadha walaasheen oo aan idin la soo wadaagay way geeriyootay, Allah u naxariisto. walaashay Sahra waxaan ku leeyahay raalli ahaaw. midda kale waxaad ogaataa naftaada Ilaahay baa gacanta ku hayo. qofka maanta sheegayo inaad geeriyootay iyo adiga qofka hor dhimanayo Ilaahay baa og. adiga laakiin waxaad ogaataa dambi dhaaf inay ku tahay adigoo adduun ku nool oo lagu duceeyay inuu Ilaahay ku naxariisto. wax xun ma ahan, waa wax adiga ku fiican. waxaan leeyahay Ilaahay dambi dhaaf kaaga dhigo. raaligelinta labaad waxaan ka raaligelinayaa sayga Sahra. aad iyo aad baad u mahadsan tahay si degan oo aad qadka noo soo gashay. aniga laftirkay xaas ayaan leeyahay. haddii maanta aan baraha bulshada ku arki lahaa xaaskayga oo been abuur laga sameynayo oo la oranayo way dhimatay, waan ka xanaaqi lahaa, waana ka xumaan lahaa. waad ku saxan tahay inaad ka xanaaqdid ama ka xumaatid, xaq ayaad u leedahay. adigana waxaan ku leeyahay raalli ahaaw. raaligelinta saddexaad, ilmaha ay dhashay walaashay Sahra, maama Sahra ilmahay dhashay ayaan leeyahay raalli ahaada. aniga laftirkay hooyo ayaan leeyahay. haddii maanta aan baraha bulshada ku arki lahaa hooyaday been abuur laga sameynayo iyadoo nool way dhimatay la oranayo, waan ka xumaan lahaa, waana nixi lahaa. haddii aanan ka warqabin hooyadeed ama aan la nooleen, aad iyo aad baan u naxi lahaa. arrintaasi waxaan aaminsanahay
inay qalbigiina dhaawaci karto ama aad ka xumaan kartiin maadaama hooyadiina maanta xanuunsan tahay oo aad weliba booqan karin oo aad u tagi karin haddii ilaahay caafimaadkeeda u soo celiyo ee guri joogto waa gooni balse xanuunkan ma la isbooqan karo mana la isku imaan karo adinkoo xaaladaas ku jirtiin markii aad baraha bulshada ka aragtiin hooyadiina way geeriyootay aad iyo aad baad ka xumaan kartiin dhaawacaasi iyo xumaantaasi idin soo gaartay khaasatan channelka Qays iyo Raxma raalli ahaada ayaan idin leenahay hooyadiinana ilaahay ha idiin cafiyo caafimaadkeeda 100% ilaahay ha u soo celiyo ilaahayna ha idiin daayo raalli gelinta afraad ummadda Soomaaliyeed ayaan ka raalli gelineynaa annaga waana la qalday ma khaldamo waa alle muuqaalkaas aan idin soo gudbinay waxaan ku faraxsanahay inuu noqday muuqaal waxba kama jiraan ah sababtoo ah gabadha walaasheen oo naloo sheegay inay geeriyootay oo annaga aan idin la soo wadaagnay ma geeriyooni way nooshahay waxaan noo xaqiijin doona arintaasi walaalaha qadka ku jiro oo ay ka mid yihiin Sahra saygeeda iyo waliba dumaashigeeda iyo walaalaha kale oo ay daris yihiin oo si fiican isku yaqaaneen ayaa noo xaqiijin doono adinkana waxaan idin leenahay haddii aan idin khaladnay naga raalli ahaada annagaba waa nala soo khalday naga raalli ahaada ayaan idin leeyahay ugu dambeyn waxaan raalli gelin ka bixinayaa anigoo ku hadlaayo magaca asxaabta nala soo wadaagtay ama walaalaha nala soo wadaagay oo ayakana la khalday ayaan raalli gelin ka bixinayaa sababtoo ah dadkaasi qaarkood waa dadka aan been ku ogeen oo aan 100% aaminsana in ayakana la soo khalday raalli gelin ayaan ka bixinayaa anigoo ku hadlaayo afkooda intaasi waxaan rajeynayaa walaashay Sahro eheladeeda iyo qaraabadeeda iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay naga qaadan doonaan ama naga aqbali doonaan ayaa rajeynaya haddaba daawadayaal waxaan idinku soo dhaweynayaa walaalaha qadka noogu jiro oo si wanaagsan oo runtii si samir badan oo dulqaad ku dheehan yahay qadka nagu sugaayeen tan iyo inta aan qadka ku jiray ayaan qadka ku soo dhaweynaya waxaan ugu hormari doonaa walaalkay Maxamed oo asaga channelkeena igala soo xiriiray oo igu yiri gabadhaasi way nooshahay oo halkaasi xiriirkeena ka bilaabday kadib asagana walaalaha kale nagu soo xiray Maxamed waxa leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantahay haddaba ku soo dhawaaw channelka Qays iyo Raxma qofka kula hadlayana waa Qays fadlan noo faahfaahay xaaladda Sahra iyo caafimaadkeeda guud ku soo dhawaaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمان وصل القميات تبرقات في الفيسبوك هذا الوضع قوسين بدنا زار لي هذا صح ويستطيع بهيك شيء وحماستي لكن الحمد لله إذا عاصمات كذا قطب بقولي كسبات كصباح الجريدة اللي جبتها وحليها هي أخيار صومالي قال أنا صومالي بنت بدل قسم مركو حنوسي بالواتن وحاسمت بيانو واحد يقولون أعمال معنا حدين هاي سن من البرقات أنا كذا سوشيال ميديا سوق جلسنا معها قبل سوي عاصمات قطة waxaan ila joogaa seedigeedii meesha talada fadhiya deertaan asaayada soo hadli doono gabadhii waa la hadalnay marka YouTube-kii odigada la hadalnay YouTube-kii oo meesha ka qaadnay u dirnay wuu naxay wuxuu yiri wax u jiraan wara ma naqaan waxa la jiro marka wuxuu yiri aniga codka soo duubay abdaas macna oo ana fadhiya dadkaas sheegaan in qabtaan haysan dhiman oo caafimaadkeeda qabto caruurteeda ku dhaxayto gurigeeda joogto ما شاء الله عادي أدبر ومهسنتها محمد marka waxa xaqiiqa xanuunku inuu ku dhacay balse maysan geeriyoon Abdalla sidoo kale isku magaalo ayaa degantiin asagana waa wuxuu kamid ahaa dadka ka warqabo xaaladeeda caafimaad waliyo wax dhageyso odageeda waxaan dhageyso ay hadal halo ha assalamu alaykum alaykum salaam gabaraan iskareen waxaan ku beenaa tiraalina waa u dhimatay ama xaalada wax ku weyn ما ولا أنا دعي شيء غير اللي قلنا وان كبحيي وانا كبحين دونا ما قرأته خيانة أما ما ركت إلى قف أفلقادية قف نور لمشكو تلمامو قف كان كو خلصون هاي نفتر كسبين وشيء كرا وخلدم كرا بل سوى حال هذين يا حقيقة هذين كان رباين عن هذين كاقي جستو وعن كهر تقو انت أود دي دادت كبين تشيء وما قرأت الكورتر يلا أو سوشيال ميديا تصور على عسالة لقولي ليش شيء قرأت بينه وتده أنا مو حواس كسنة خفنا ولا يقول أنتي أقوى الإسلام أبتي من بعدك الصح أنا كنت نخبك إن شاء الله نكمل خدمة الضوء محل سوسية وأروح خدمة وخدمة كيسوق أبتي ما قرأته إني كذا وانا كن عدات وأنا قلنا نقولنا يمكن يوتيوب كنا قلنا يا
إنك صاحبك هو حمله أنا وأنا حمله وأنا عدينا إني قبضوا النور شهيد. علي شريف فالي راني مقعيقة وأنا إنك قبض لو شيء إني إمتى سارة عثمان جاي مركا وأنا عدينا إني وركا وحبك تجين إني قبض عثمان خفته وحنوك اللي هو إنك نقول شيء دمشق اللي هو شيء إسكندري إني كفيو ذاي مرودي أنا قاعدين حتى ما شاء الله ما صدق وما صدق ها أنا كنت ما شقيت معي قبل عقبات قبطان الحمد لله واحد دباط مجرته ما شاء الله ما شاء الله دنيا وخير مدح ميل كسريسو للصراحة ملعان هدي وننك قباب ويري وينوشاي وانكو كالصونهاي وحان رجينا إن أمد الصوماليات أرنتاسين قابتان oo laga hortago meel walba oo lagu arko qoraal ama cod gabadhaasi lagu sheegayo inay geeriyootay aniga shakhsiyan qays ahaan channelka qays iyo raxmad raali gelin ayaan ka bixinayaa gabadhaasi walaashay oo been la ii soo sheegay inaysan geeriyoonin ay nooshahay waxaana noo cadeeyay qaraabada iyo ehelada iyo ninka qabay Ali Shariif ayaa qadka ka hadlay waad maqleyseen walaalayaal raali gelin ayaan ka bixinaynaa qof walba oo Soomaaliyeed oo gabadhaasi been abuur ka sameeyay waxaan ka codsanaynaa muuqaalada inay ka saaraan meel walba ay galiyeen social media haddii kalena raali gelin buuxda inay ka bixiyaan sida horeba been u sheegeen haddana inay dadka u sheegaan inay gabadhaasi nooshahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin walaalahay qadka ku jiro aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal أنا كل ما نفهم كرتاد قف جبر ولا شيء إنه لو تبى وحاجة حنا بنجيب حاجة بنجيب وقت قف ولا شيء إنه يقدر نور لو تبى ودي ما شاء ما قرأتين ما شاء الله تعالى عبد قوي في عبادة الدار فنفهمت ما شاء الله ولا كده إنت إن شاء الله aad iyo aad baad u mahadsantihiin arrintaas intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa ilaahay ha noo cafiyo walaalaheena inta xanuunsan intuu ku dhacay ilaahay ha ka dulqaado inta u dhimatay allah u naxariisto inta kale oo weli ku dhacayna ilaahay ha ka badbaadiyo walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar kale fadlan haddaad ku cusub tahay channelka qays iyo raxmad subscribe taabo gambaleelkana ku dhufo si aad u hesho notification tan iyo kulantideena dambe walaalayaal waxaan idin rajeynayaa nabad iyo nolol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh